to ay labada gole isugu yimaadeen aragtida dadku way ku qaybsan yihiin qolo boqolkiiba boqol ku faraxsan oo sidaa dawladnimada u aragta oo sidaa sharafta u aragta oo sidaa wanaagga u aragta oo farxad cirka maraysa oo xafladaynaysa way jirtaa qolo ka xun sidii ay wax u dhaceen oo u aragta in haybadii iyo karaamadii ummadan dhulka lala dhacay oo foolxumada ka murugaysanina way jiraan oo ka tiiraanyeysani anigu labadaa kuwa dambaanahay kulmiyana waan taageersanahay iyo musharaxiisa waxaan idin sheegayaa waxa qaldamay iyo cidda wax qalatay ninka koobaad ee dambiilaha ku ah arrinkaasi waa guddoomiyaha wakiilada ka koobaad madashu labay ahayd inay mid noqoto inay noqoto khudbad sanadeedkii madaxweynaha oo ay labada gole ku kulmaan oo madaxweynuhu labada gole isku yeelaan saxbay inuu noqdo mooshin sharci oo la soo gudbiyey oo xukuumaddu soo curisay oo la dhex keenayo golaha wakiilada oo guddoomiyaha golaha wakiiladu uu joogay oo Cabdiraxmaan Cirre hogaamiyay horta labadaa waxaan ahayn inuu noqdo muu ahayn dee fadhigaas Cabdiraxmaan laftiisa inoo sheegay oo inagu yiri ajandaba ma laha waxaan la noo soo qoray haddaan ajanda lahayn inuu warqad celiyaabay ahayd oo uu madaxweynaha dib ugu celiyo oo uu ku yiraahdo madaxweyne haddii ay khudbad sanadeedkii tahayna warqadda ku soo cadde haddii ay mooshin sharci tahayna annaga xaq u leh golaha wakiilada leh golaha wakiilada noo soo gudbi shir guddoonka loo gudbiya markaana ma fadhiisanayo madaxweynuhu ma imanayo waxa loo soo gudbinayaa mooshinka sharciga ah shir guddoonka wakiilada shir guddoonku sida caadiga ah mooshinka waxay u saaraan guddi aqoon ahaan ay bideen guddidaasaa soo fadhida oo soo eegta markaasaa dabeedna laga doodaa doodii baa la ururiyaa dabeedna cod baa loo qaadaa ninka ina hoojiyey oo ninkaa madaxweynaha ku socda oo hintiisan dambe wax la dhegaysanaya ma aha wax la dhegaysan karana ma aha aniga intuu ka soo baxay shirka ka soo cararo shirkan uu ka soo baxay muxuu ahaa haddii la yidhaahna igama jawaabayo oo ma garanayo war shirkan aad ka soo baxday magicii waana guddoomiyihii wakiilada markaa isagaa u salaxay dee ninkan lagu yidhaa Saleebaan Gaal waa waslad xun oo inagu dhex jirta tan iyo faqastii ilaa iyo faqastii the last man way xumaanta dadka waxaan hayna intuu noola kama shaqayn habeen qurihii kuma jirto taariikhda Saleebaan Gaal oo nadiif yahay arda gurigiisa taga soo eegay gurigiisa waa taro fooqya la dhisaya fooqya la isu dhisaya kan fooq baa loo dhisaya dekad la cun oo dhul la cun oo airport la cun oo wax walba la cun anigu xataa madaarka waan ku raacsanaa dekada waa ogeeyeen ninkii ugu dooda badnaa baan ahaa bal dadkani inay wuxuun soo reebaan ama wuxuun lagu gaari karo oo la sixi karo wax allaaliye wax lagu gaarayaana ma jiro ninka ku riyoonayo doorashaa dhici oo ay lagu kala tagina ma jirto Saleebaan Gaal waa kan aqalkii baa dhamaanaya xoogaa buu qabyoobi doonaa haddana waa loo dhiibayaa haddana sidii buu odhanaya war ma ninka ka xishoon waayey isaga oo SNM la dagaalamayay 9 sanadood oo ninka ugu dagaal badan ee isaaq Soomaali SNM ahaa ayuu soo baxsaday intuu baqday sidoo ordayay wuxuu yimi Balligubad markuu isa soo taagay wuxuu yiri ma taqaanaa golaha dhexe ee SNM ha lagu daro xeerku wuxuu qoray 2 sanadood qofku inuu joogo marka lagu qoro wuxuu ka xishoon waayey markii SNM isqabatay waa ninka ka xishoon waayey inuu yidhaa aniga daraaday ha u burburina SNM anigu imakaan idiin imi golihiinnii dhexe sharcigiinna ixtiraama oo raaca muu qaadan waslad xaaraana buu qaatay oo uu ku noqday golaha dhexe ilaa maalintaa uu ina soo galay qof bini aadmi ah oo Soomaaliland maalin kamaan maqnayn qof sheegi kara
irbad uu dun u geliyey Saleebaan Gaal dalka ma jirto xumaan dalka ka dhacday oo isaga dhaafsiisanina oo uu ka faramaran yahay xumaan uu ka faramaran yahayna taariikhda ugu ma jirto marka waxa weeye Soomaaliland asnamna way qaldanayd ummadii Soomaaliyeed oo dhan baynu u rognay waslada xun ee ku dhex jirta ummadda Soomaaliyeedna waa reerka Isaaq la yiraahdo oo isu qaba inay dadka ka wanaagsan yihiin haddana waxa sax xukumaysa u daawanaya ummadooda waxoodu ay inta u soo wada baabeen baa indhahooda hortooda lagu baabeeyo afar qof iyo waxa ay ku yiminayaan maalinba meel lagu xaraashaya marka adeer ummadani ummad maaha ummadanina laa yuqayyiru Allahu ma biqawmin hatta an yuqayyiru ma bi anfusihim ba haysata xumaanta culimada ugu sheekhay ah khamiisyada leh oo musuq maasuqa ugu aabba oo haysta kitaab xalaaleynaya xaaraanta marka ma taas Ilaahay gargaar u fidinaya abaartay duceeyna roobku uu sii durki haynoogu akhrina dhaar roob doon waayo Ilaahay de lama khiyaamayo yaclamu sirra wa akhfa markaan waxaan leeyahay dekada berbera airportkii berbera carar waa ninka keena carab bal ninka ku dhici kara soo imika ma maqlaysaan ha yimaada carabi sanadcud naadiya falyadcu naadiya sanadcu sabaniya annana waxaanu keeni Ethiopia aanu dekada siin oo nu airportka siin oo nu soo galbin oo wallaahi nagu nala xorayn ee bal ninka carab keenayo adigu xaniya leedahay